kulanti waxaan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka. Qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xogta dhaqdhaqaaqyo xoogan oo caawa ka socda Villa Soomaaliya, lafta gareen oo uu quusgooyay madaxweyne xasan sheekh, xiisada doorashada oo meel adag taagan iyo wararkii ugu dambeeyay kulamada socda ayaan saaxiibayaal warkan ku falanqeyn doonaa. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku eegi doonaa warkan, balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhammaystiran. aynu ku horeyne Villa Soomaaliya waxaa ka socda kulamo culus oo loogu gogol xaarayo xaaladda dalka iyo shirka golaha tashiga qaranka. inkastoo shirkan oo beri furmi lahaa uu hadda wajahayo caqabad adag oo la xiriirta diidmada dowlad goboleedyada qaarkood iyo in uu jiro cadaadis caalam oo ka imaanaya saaxiibada jooga xalane, kuwaas oo madaxda Soomaalida ku qasbaysa in ay ugu yaraan isku imaadaan si ay u qabtaan shir looga hadlayo ayaha dowladnimada Soomaaliya. ila wareedyo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa inoo xaqiijiyay in hadda kulan guud uu ka soconayo xafiiska madaxweynaha, kaasoo u dhexeeya ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha, gudoomiyaha baarlamaanka iyo maamul goboleedyada qaarkood, waxaana loogu gogol xaarayaa sidii shirkaas beri u furmi lahaa. inkastoo weli caasimadan uu soo gaarin hogaamiyaha koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isagu u quusgooyay qorshihii siyaasadeed ee madaxweyne xasan, isla markaana baydhabo dusheeda u tegay dhiirigelinta ciidamadiisa ee daraawiishta koonfur galbeed, taasoo ku muujinayso in uu wado isboojayn siyaasadeed iyo in uu diidan yahay in caasimada uu soo caga dhigto. xogta waxa ay muujinaysaa in hogaamiyaha koonfur galbeed sidoo kale uu wajahayo caqabad siyaasadeed oo uga imaaneysa dhanka dowladda federaalka, taasoo uu doonaysa in la hirgeliyo qorshe siyaasadeed. sidoo kale dhismaha xisbi qaran oo ay ku midoobaan dowlad goboleedyada dowladda federaalka ayaa weli lagu heshiinin, waana sababaha keentay in lafta gareen uu quusgooyo madaxweyne xasan si cadna uu diido in uu yimaado magaalada muqdisho si uga qayb galo shirka golaha watashiga qaranka. dhinaca kale waxaa socda cadaadis weyn oo dhanka saaxiibada caalamka ka imaanaya, kaasoo ku aadan in maamulada qaarkood ay shirka tagaan, gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland. wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay Muqdisho ayaa haatan wada dadaalo dheeraad ah oo ku aadan xal u helidda muranka siyaasadeed ee ka taagan dalka, gaar ahaan hanaanka doorashooyinka Soomaaliya. beesha caalamka ayaa si gaar ah cadaadis ugu haysa qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada si ay u yimaadaan magaalada Muqdisho ugana qayb galaan shirka uu ku baaqay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo looga hadlayo xaaladda dalka Soomaaliya. dadaalada socda ayaa waxaa hogaaminaya ergeyga gaarka ah ee qaramada qabilsan Soomaaliya, Ambassador James Iswan, oo maalmihii u dambeeyay boqoshooyin ku tagay magaalooyinka Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Boosaaso, halkaas oo uu kula soo kulmay madaxda maamulada si uu uga dhageysto aragtidooda ku aadan amniga iyo doorashooyinka Soomaaliya. maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa hadda maqan, kuwaas oo uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo Villa Soomaaliya, iyada oo meeshii uu ka baxay xiriirkii kala dhexeeyay dowladda dhexe. sidoo kale dadaalada beesha caalamka ayaa waxaa qayb ka ah xal u helidda xiisada taagan si looga gudbo khilaafaadka hareeyay doorashooyinka dalka ee 2026. dhankooda siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa iyaguna si weyn u diiday qorshaha madaxda dowladda ee ku aadan doorashooyinka qof iyo codka ah oo haatan diiwaangelintoodu ay ka socoto magaalada Muqdisho, taas oo lasoo gabagabeynayo dhammaadka Juun. si kastaba ha ahaatee, maalinta berito ah oo 5 bisha ku beegan ayaa qorshuhu yahay inuu Muqdisho ka furmo shir golaha tashiga qaranka, waxaana markii ugu horeysay ka qayb galay hogaamiyaha SSC Qaatumo oo soo gaaray magaalada Muqdisho. Soomaaliya ayaa hadda ku jirta marxalad siyaasadeed oo cakiran, waxaana u sii dheer halista shabaab oo haatan culays soo saartay gobolada shabeellooyinka oo daris la ah magaalada Muqdisho. lama oga sida ay wax noqon doonaan, waxaase laga warsugayaa natiijada ka soo baxda shirka haatan loo ballansan yahay oo ku soo aaday xilli xasaasi ah oo loo baahnaa, una muuqato in weli khilaaf xoogan uu ka taagan yahay hanaanka siyaasadda dalka iyo nidaamka awood qaybsiga doorashooyinka oo hadda u muuqda in weli aan la isku fahmin. dhanka kale, SSC Qaatumo waxa ay u quusgoysay Puntland si adagna uga jawaabtay eedeyntii Siciidani. maamulka Qaatumo ayaa si rasmi ah uga jawaabtay hadal dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Siciidani, kaasoo muujiyay in Puntland ay ka xun tahay xiriirka dhow ee u dhexeeya SSC Qaatumo iyo dowladda federaalka. maamulka SSC ayaa si cad u sheegay in mowqifkooda siyaasadeed uusan ku xirnayn ra'yiga Puntland. wasiirka warafinta ee SSC Qaatumo Najiib Barqadle Warsame ayaa carabka ku dhuftay in maamulka SSC aanu u baahnayn
in uu Puntland kala tashado xiriirka uu la leeyahay dowladda dhexe ee federaalka. Waxa uu xusay in labada dhinacba ay si madax bannaan ula macaamili karaan dowladda federaalka, taas oo aan waxba ka bedelnayn sharcinimada iyo madaxbannaanida goonidooda. Najiib Barqadle ayaa si adag u dhaliilay Puntland isagoo xusay in aysan wax wadashi ah la sameyn SSC markii ay xiriirka la sameysay maamul gooni goosad ah oo ula jeedo Somaliland. Sidoo kale waxa uu su'aal geliyay sababta SSC looga filan karo in ay Puntland kala tashato xiriirka ay la leedahay dowladda federaalka, iyadoo Puntland lafteedu tallaabooyin aan la ogolayn ay qaaday. Wasiirku waxa uu sidoo kale shaaca ka qaaday in maamulka SSC qaatumo uu marar badan isku dayay inuu wada hadal iyo xiriir la yeesho Puntland, hase yeeshee aysan wax jawaab ka helin dhanka maamulkaasi, gaar ahaan madaxweynaha Puntland. Isagoo arrintaasi faahfaahinaya, Wasiir Najiib ayaa sheegay in SSC aysan cidna uga baahnayn ogolaansho marka ay tahay difaaca danahooda siyaasadeed. Waxa uu xusay in SSC uu si cad u fahamsan tahay taladooda u taalla iyaga, ayna tahay mid aan lala sugin go'aamada maamul kale. Sidoo kale wasiirka arrinta waxa uu sheegay in SSC ay dantooda siyaasadeed iyo tan dadkooda ku arkeen in ay xiriir toos ah la yeeshaan dowladda federaalka. Tani waxay qayb ka tahay dadaalada SSC ay ku doonayaan in codkooda laga maqlo heerka qaranka, lagana qaybgeliyo arrimaha siyaasadda waddanka iyo halka lagu jaangoynayo gogosha Soomaaliyeed. Wasiirka ayaa ugu dambeyntii adkeeyay in SSC ay ku howlan tahay sidii kuraasta deegaanadooda loogu soo dooran lahaa gudaha maamuladan, halka la geysan lahaa gobollo kale. Tallaabadan ayaa ah mid ay SSC ku doonayaan in ay xaqiijiyaan matalaad dhab ah oo sar ku haysa rabitaanka shacabka deegaanadaasi. Waxaana tani ay muujinaysaa in loo qorgooyay Siciid Dani, si cadna maamulkiisa loogu sheegay in haba yaraatee aysan jirin wax tallaabo ah ay ka qaadi karaan aqoonsiga Puntland ay ka heshay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, xiisada doorashada ayaa meel adag maraysa, waxaana weli khilaaf xooggan uu ka taagan yahay shirka golaha watashiga qaranka oo hadda qarka u saaran in mar kale uu baaqdo, sababta la xiriirta in weli aan la shaacin ajendaha rasmiga ah ee shirkaasi looga doodi doono, welina ay maqan yihiin qayb ahaan maamulada ugu muhiimsan ee talada dalkan wax ka lahaa, taas oo hadda ay muuqanayso in weli kuwii kale ee gacanta filada ku jiray aysan hadda joogin. Madaxweyne xasan ayaa wajahaya jahwareer siyaasadeed, waxaana uu iska wataa howlo siyaasadeed oo dhanka doorashooyinka ah, aysanna qayb ka ahayn siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo maamulada qaarkood, taasoo ka dhigan in ugu dambeyn lagu soo biyo shuban doono in teendhada afiisooyin la aado. Xaaladda filada ayaa kacsan, shirar aan kala har lahayn, kulamo aan waxba ka soo baxaynin iyo isku imaatin badan ayaa dilay madaxdii qaranka. Haddana weli gacmaha kuma hayaan hogaamiyaashii maamulada iyo si guud marka loo eego siyaasiyiintii mucaaradka ahaa oo hadda iyagu ka baaqsaday in ay madaxweynaha kala qayb galaan shirkii iyo gogashii uu fidiyey. Saaxiibayaal, waa naga inta wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka. Nabadgelyo.